bismillaahi raxmaani raxiim kulan wacan oo wanaagsan daawadayaal halkan waa janalka xogta media waxaad ku soo dhawaataan warbixin gaar ah oo aan diiradda ku saari doono war culus oo ka soo yeeray gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa caasimada muqdisho mudane cumar maxamuud maxamed cumar filish kaasi oo weerar afka ku qaaday midowga musharaxiinta mucaaradka Soomaaliya oo ka soo horjeeda aragtida madaxweynaha madaxweynaantiisa ay dhamaatay ee Soomaaliya Maxamed Cabdilaahi Farmaajo hayeeshee inta aanan warbixinta guda gelin daawadayaal waxaan idinka codsanayaa in aad muuqaalkan la gareysaan la wadaagtaan asxaabtiina si uu saaxiibo fara badan u sii gaaro sidoo kale daawade haddii aad nagu cusub tahay channelkeena ku soo biir subscribe inoo saar adigoo furanaya gambaleelka si mar walbaba aad u hesho muuqaalada aan halkan soo gelino sidoo kale qaybta hoose ee faalada lagu gudbiyo commentiga waxa ay inoogu leebi karaysaa aragtidaada saliimka ah markaana waxaan gudageli doonaa warbixintii aan hordhaca barnaamijka idinkugu soo sheegnay Cumar Filish gudoomiyaha gobolka Banaadir ayaana ku bilaabi doonaa hadal kulul oo ka soo yeeray iyo halka uu biyo dhiciisu yahay Cumar Filish gudoomiyaha gobolka Banaadir ayaa weerar culus ku qaaday midowga musharaxiinta mucaaradka Soomaaliya gudoomiyaha gobolka Banaadir oo sidoo kalena duqa magaalada caasimada Muqdisho Cumar Maxamuud Maxamed Cumar Filish oo hadal ka jeediyay xiritaanka shirweynaha higsiga caasimada ee sanada 2040 ayaa waxa uu ku dhaliilay midowga musharaxiinta in ay xiligan ku goodiyaan shirweyne gudoomiyaha Cumar Filish ayaa sheegay in siyaasiyiinta qaar marka ay caroodaan ama danahooda ay waayaan ay ku baaqaan ama ay ku hadaaqaan shirweyne la qabana iyo dib ayaa loo noqona waxaase uu sheegay in aysan u roonayn dowladnimada runtii waxaa lagu jira marxalad siyaasadeed oo doorashooyin ah oo buuq badan oo qatar badan ayaynan ogolaanin wax kasta oo dib inoo celinaya siyaasiyiinta marka ay caroodaan ama danahooda waayaan kuwa ku hadaaqa jira mana aha arin u roon Soomaalinimada oo dhahaysa dib ha loo noqdo ay yiri gudoomiyaha Cumar Filish midkii waasha in aad u sacbisaan waa waxyaabaha dib inoo celinaya ee si habaabinaya cid kasta oo siyaasi ah oo danta ummadda ka shaqeynaysa waa in la garab istaago waxa uu intaasi ku sii daray in hadallada qaar ee siyaasiyiinta ay u yiraahdaan si ka fiirsi la'aan ay horseedi karto in dalka uu dib ugu laabto sidii uu ahaan jiray taasi oo uu sheegay in aysan wax dana ugu jirin ummadda Soomaaliyeed ugu dambeyntiina waxa uu sheegay in dadweynaha Soomaaliyeed aysan u nuglaan wax kasta oo keeni karo caqibo xumo isla markaana ay markasta ka shaqeeyaan rabitaanka danta guud oo ka maran dan gaar ah sida uu sheegay hadalkan ayaa imaanaya xilli midowga musharaxiinta mucaaradka Soomaaliya si adag uga hor yimaadeen hanaanka doorashada golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya ayaga oo qaadacay doorashada koor inta la saxayo qaladaadka ka jira todobaadyadii u dambeeyayna gudaha caasimada dalka ka waday kulamo looga areensanayo xaaladda dalka iyo arrimaha doorashooyinka Cumar Filish gudoomiyaha gobolka Banaadir ayaa horay waxa uu u dhaliilay qaabka ay musharaxiinta u mucaaradaan hab fikirka madaxweyne Farmaajo iyo dowladdiisa gudoomiyihii gobolkan ahay mas'uuliyadda amaankuna aniga ayay saaran tahay anuu hawiye Soomaali maduurkan ka imid kuma dhacaan in ay xasilooni daro abuuraan ee kuwa soo diray ayay u muujinayaan in ay shaqeeyeen ayuu horay u yiri Cumar Filish gudoomiyaha gobolka Banaadir Cumar Filish gudoomiyaha gobolka u muuqda mid si weyn uga carooday dhaqdhaqaaqyo mucaaradka iyo siyaasiyiinta ay isku beesha yihiin ka wadeen magaalada caasimada Muqdisho ayaa hore u sheegay in siyaasiyiinta mucaaradka laga soo dirtay dalal shisheeye isla markaana ay fulinayaan qorshayaal la soo waariday Filish ayaa sidoo kale hore u sheegay in ay talaabo adag ka qaadi doonaan haday isku dayaan inay xasilooni daro abuuraan isagoona ku baaqay in la dilo mucaaradka wuxuuna dilkooda qiil uga dhigtay aayado quraan ah oo ku jira suuratul ahzaab dhinaca kale xildhibaan Mahad Maxamed Salaad oo waqtiga u soo jawaabay Cumar Filish isla markaasina kamid ahaa siyaasiyiinta mucaaradka Soomaaliya ayaa ka hadlay hadalka ka soo yeeray Cumar Filish wuxuu yiri musharaxiinta meeshii lagu arkaa lagu dilo
cumar oo qoriga debka ah ee Fahad iyo Farmaajo ku soo dhiibeen dhulka iska dhig adiga ha ku gubanine haddii dhago wax maqla kugu yaalaanna dad dilow ha ku dambeeyo ee duqiyo xarunta dowladda hoose gudoomiyaha aad ka tahay ee halka isbuuc korontadu ka dansan tahay biilkeeda iska bixi ayuu hore ugu jawaabay xildhibaan Mahad Maxamed Salaad duqa Muqdisho Cumar Filish oo waqti mucaaradka Soomaaliya u jeediyay dhaleeceen culus guud ahaan daawadayaal waa inaga inta warbixintii aan diiradda ku saarinay hadalkii ku soo yeeray gudoomiyaha gobolka Banaadir Cumar Filish kaasi oo weerar ku qaaday midowga musharaxiinta mucaaradka Soomaaliya kuwaasi oo maalmahan dhaqdhaqaaqyo culus ka wada magaalada caasimadda Muqdisho waxa ay ka soo horjeesteen boobka uu madaxweyne Maxamed Cabdilaahi Farmaajo ku hayo kuraasta xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka 11aad ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya tan iyo warbixin noocan oo kala inta dib isugu kulmi doono sidaas iyo nabadgelyo ha inaga tagin adigoo muuqaalkan la gareyn sidoo kalena channelkeena aad subscribe saarin